السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalaha ku xiran channelkeena waad mahadsantihiin marka hore marka xigtana maanta waxaan ka hadli rabnaa haddii uu Ilaahay ka raali noqdo ducooyinkeena aqbalidooda iyo waxa hortaagan. waxaan arkay qaar ka mid ah walaalaha channelka ku xiran qoraaladooda oo ay quus ka muuqatay. anigu wax walba waan sameeyay, duco kasta waan akhristaa, wax isbedel ahna ma helo. arrintaas waa mid khatarteeda leh. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ducooyinkiinoo dhan Ilaahay wuu aqbalaa ilaa mid degdega ma ogiye. taas waa degdega uu nabiga sallallahu alayhi wasallam nooga digay. haddii aad degdegto oo aad samir yeelan weydo oo wixii aad Ilaahay weydiisatay inta uu kaa siinayo aad isku qancin weydo in uu dalab kuu maqan yahay, waad degdegtay. waxaa kaloo muhiim ah Ilaahay markaad baryayso inaad barido adigoo yaqiinsan inuu ku siinayo. yaqiintaas haddii laga helo ma degdegaysid ee qalbigaaga wuu degayaa. laakiin yaqiin la'aan iyo degdeg way iswataan oo ma kala haraan. waa in labadaas la iska ilaaliyaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri ud'u Allaha wa antum muqinuuna bil ijaaba. Ilaahay baryo idinkoo xaqiiqsan oo boqolkiiba boqol huba in waxaas uu ku siinayo. markaas ayaad helaysaa. inta ay kaa maqan tahayna waad sugi kartaa haddiiba aad yaqiintaas leedahay. waxaa kaloo aan ka digayaa in uu qofka Ilaahay baryo asagoon qalbiga ka hadlaynin. mararka qaar intaan meel fariisanaan dhahnaa Ilaahayow waxaana siiyo waxaa naga qabo. afkaaga waxaa ka muhiimsan qalbigaaga. an allaha laa yastajiibu ducaa min qalbin qaafilillah. Ilaahay ma aqbalo duco ka imaatay qalbi maqan. markaad Ilaahay baryayso waa in aad khushuuc lahaataa adigoo dareensan inuu Ilaahay ku maqlaayo oo ku arkayo. markaad la hadasho ducadaas Alle wuu ku aqbalayaa. laakiin haddaad wax iska dareeriso waxaad ka tagtay mid ka mid ah shuruudihii ducooyinka lagu aqbalayay oo ah inaad qalbigaaga soo xaadiriso khushuucna la imaataa. ma Ilaahay baa ballan uu qaaday ka baxo. subxaanallahi alwaaxid almanaan. Alle sooma dhihin udcuuni astajib lakum, ibarya waan idinka aqbalayaaye. nabiga sallallahu alayhi wasallam oo ummadiisa dhex joogo Ilaahay soo kuma dhihin wa idaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata daa'i idaa dacaan. haddii addoomadeyda i kaa weydiiyaan waan u dhowahay u sheeg waan na siinayaa wixii ay iga baryaane. ma waxaana aaminsanayn inuu Ilaahay noo dhow yahay sida uu noo sheegay. ma waxaana ku qanacsanayn in uu Ilaahay noo oofinayo ballantii uu noo qaaday ee ahayd ibarya waan idinka aqbalayaaye. gabar baa waxaan arkayay maalin dhexdaas ah. waxay tiri sida gabadha hadalkeeda aan ka dhadhamiyay waxay ahayd gabar markeeda hore iska reera adduunyo ahayd oo diin iyo Ilaahay amarkiis aan shuqul ku lahayn. laakiin muraad bay yeelatay. waxayna maqashay in haddii la baryo oo habeenkii taajud la tukado Ilaahay waxa aad ka barido uu ku siinayo. ma garan karo gabadhaas inay Soomaali tahay in kale. luqadda Ingiriiska iyo qoraalkeeda ku qornaa. waxay tiri qof bay tan iga gashay oo in aan kala baxnana igu adkaatay. waxaan maqlay in haddii taajud la tukado oo xilligaas Ilaahay la baryo waxaad rabto uu ku siinayo. in ku dhow 10 beri ayaan habeen kasta tukan jiray taajudka, laakiin Ilaahay wax uu isiiyay ma lahan. subxaanallah. aniga maxaan u sii wadayaa salaadaas taajudka haddii wax uu isiinayo aysan jirin. wixii aan rabay haddaan waayay hadalkeeda yacni maba sii dhammaystiri karo. gabadhaas oo kale marka maxay u dan lahayd? waxay rabtay in waxaan adduunyada lagu siiyo, laakiin Ilaahay muxuu rabaa in aakhira iyo adduunyaba uu ku badbaadiyo, in jidka toosan uu kugu rido oo aad ku xirnaato. haddii laakiin hadafkeena ah in wax aan rabno nala siiyo nalagu siiyo, waxaa laga yaabaa in aan ku sii jirno noloshaas habowga ah, hadhowna qofkaas uu sidaas ku dhinto. Ilaahay waa midka kaaga naxariis badan hooyadii ku dhashay. adduun iyo aakhira wuxuu kula rabaa inaad hagaagto. mararka qaar haddii waxaad Ilaahay ka baryayso ay soo daahaan waxaa ku jirto xikmad weyn oo adiga aad fahmi karin. Ilaahay sida uu kuu dooro ayuu khayrka kuugu jiraa. wixii soo degdegay iyo wixii dib dhacaba waa inaad ku qanacsanaataa. meelo badan Ilaahay wuxuu nagu faray in naxariistiisa aan ka quusanin.
laa taqnatuu min raxmatillaah. alle waxa uu kuu qoray ee qadarta ah ee kugu dhacay iyo baryada aad baryayso xaggiisa waxaa ku xoog badan baryada aad baryayso. waxbaa isbedeli, taas waa inaad aaminsanaataa. laa tay'asuu min rawxillaahi innahu laa yay'asu min rawxillaahi ila alqawmi alkaafiruun. alle wuxuu leeyahay naxariisteyda ha ka quusanina, waxaa keliyahe naxariisteyda ka quusta waa kuwa kaafiriinta ah. waxaan rabaa inaan idinla wadaago, waxaa jira walaalo ku xiran channelka oo ila soo wadaago qisooyinkooda iyo in ducooyinkooda alle uu aqbalay oo uu siiyey wixii ay rabeen. 3 ka mid ah ayaan hadda idinkaga sheekayn doonaa. waxaase jira qaar aad u fara badan oo aan noo sheegin waxyaabaha ay ku helaan ducooyinkooda, sababtoo annaga wax ma siinaa, ilaahay baa wax siiyey. ilaahay inay u mahadceliyaan unbaana waajib ku ah. haddii ay nala wadaagaan way noo fiican tahay oo waxaan la wadaagaynaa walaalo kale inkastoo aanan magacyadooda adeegsanaynin, si walaalaha kale ee weli muraadyadooda aan helin ay dhiirigelin ugu noqoto, niyad jabkana ay uga baaqsadaan. laakiin waxaan rabaa inaan hal mida oo dhammaanteen muhiim noo ah aan idin xasuusiyo. markaad ilaahay baryayso wixii aad rabtay xitaa haddaada helin, waxaa jirta hal nimco oo dhammaanteen aan wada helnay, uusanna jirin hal qof oo inkiri karo ilaa mid marka horeba ujeedo khaldan lahaa ma ogiye. markaad ilaahay xaggiisa usoo jeedsatay waxaad baratay waxyaabo badan oo laga yaabo hore inaad u aqoonin, oo kale ah dikri, ducooyin, aayado qur-aana, waxyaabo badan oo diini ah oo laga yaabo horaan inaad u fahansanayn. diinta meeshii aad marka hore ka joogtayna waxay u badan tahay hadda inaad uga soo dhawaatay. taasi nimco ma tahay mise ma ahan? tan ugu muhiimsan ee adduun iyo aakhiraba qofka irdaha u furto waa inuu qofka ilaahay xaggiisa usoo noqdo. oo xitaa laga yaabo inaan markeenii hore ahaan jirnay kuwo aan weligood ilaahay dembi dhaaf weydiisanin, haddana aan leenahay wardiye istikfaara iyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. qaarkeen ay taajud habeenkii usoo kacaan, halka marka hore 5 salaadood faralka ahba ay culays kugu ahaayeen, wax kalood ku dartaba iska daaye. waxa marka aad raadinaysay ee aad dartiis usoo hanuuntay ee ilaahay ka baryayso waxaa ka fiican waxaan aad hadda heshay. ilaahay sidaas ha noo fahansiiyo. qofka ugu horeeya ee ilaahay ducadiisa uu aqbalay waa gabar walaasheen oo channelka ku xiran. gabadhan waxay ahayd mid awlaad la'aan ah, in badan waa la niyad jibiyey, waxaa loo sheegay in aysan dhali karin ay cilado leedahay, in xitaa da'dii lagu dhalaayay ay dhaaftay. bal aan isweydiine imise sababood oo gabadhaas ay ku quusan kartaa horteeda yaalla. 1 waxay ku dhaheen waad dhaaftay da'dii lagu dhali jiray. 2 waxay ku dhaheen waxaad leedahay cilad aan kuu ogolaan karin inaad dhasho. laakiin waxay ku tiri haddii aad idinka dhasha haysaan ma dhali doono, laakiin haddii uu ilaahay hayo awlaad wuu isiin doonaa. ilaahay way bariday, ma aysan quusanin. waxay tiri duco kaste waan akhrisan jiray oo soo gelisaan af Soomaalina ilaahay waan ku bari jiray. alxamdulillaah ilaahay awlaad wuu isiiyey. waxaan alle uga baryaynaa inuu u barakeeyo una badiyo awlaadeeda, baariyana uga dhigo. qofka xigo wuxuu yidhi waxaa igu dhacay fakhri iyo waxyari. marka hore waxaan ka shaqayn jiray shaqo ee yar tahay waxa aan ka helo, anigooba saluugsan ayaa haddana tiina la iga sii buriyey. markaas ayaa waxaan dareemay in albaabadii ay igu soo xirmeen. murug intay ahaan kartay baa i qabatay oo reer baa igu xiriiro. wax aan gacan ku hayana ma lahan. dadaal kastaan sameeyey, dadka inta aan isnaqaanay iyo wax aan ehel ahaynba shaqo waan u dirsan jiray, waan socon jiray oo waan raadin jiray, laakiin shaqadii ayaan waayay oo igu adkaatay helitaankeedii. markii dambe waxaan maalin anigoo YouTube iska daawanayo arkay channelkiina oo ducooyinka aad soo galgalisaan. waxaan bilaabay inaan ducooyinkii barto, in wax kasta aan ku dadaalo oo xaq ilaahay ii dhaweynayo. ducooyinka aad baan u akhrisan jiray, habeenkii taajud baan u soo kici jiray, markasta ilaahay waan bari jiray. alla ducooyinkaygii oo dhan inuu ii aqbalay ayaan aaminsanahay. wuxuu i siiyey shaqo aad u wanaagsan, ilaahay irsaaqada wuu ii waasiciyey, asagaana mahadoo dhan leh. qofka 3aad ee ugu dambeeyo wuxuu noo sheegay inuu muraad lahaa, inkastoo uu iga codsaday inaan muraadkiisa faahfaahinin oo aanan sheegin, laakiin si guud ayaan rabaa inaan idinla wadaago. wuxuu dhahay waxaa igu adkayd arrin, mar kasta oo aan arrintaas isku dayana caqabado ayay soo food saari jiray. xitaa haddii taasaan afjarantu kala bilaabo tiina isla sidii oo kale ayaan ku arki jiray.
xitaa mararka qaar waxaan iskaga shakiyay ma lagu sixray oo waxaan ma lagaa soo xiray. laakiin ilaahay mahadiis ilaahay baan bariyay waan tala saartay waxaan ilaahay adiga ogshay wuxuu jiraan markasta dhibaatadana ay haysato meel kasto aan rabo inaan wax ka bilaabana way iga soo xirantahay. waxaan ka baryayaa ilaahay inaad iridii furto arrimaha iyo hagaajiso ducooyinka akhrin jiray. ilaahay mahadiis hadda waxaan joogaa meeshii ugu farxadda badnayd. isla gabadhaan arrinteeda hore ayaan ula socday oo mar dhowr bilood laga joogo ayay ila soo xiriirtay iyadoo rabta in aan kala taliyo. ilaahay mahadiis waxay mar kale ii soo celisay jawaab ah in arrimihii ay hagaageen. anigana aad baan ugu farxay in rabbi ducooyinkeena noo aqbalay gabadhaasna u yeelay sidii ay jeclayd. ilaahay ballanta wuu oofiyaa haddaad barido wuu ku siin. alle waxaan ka baryaynaa in uu na siiyo samir aan ku sugno waxa noo soo socdo. inta aan weli muraadjadooda helin alle waxaan uga baryaynaa inuu ku irsaaqo waxay ku farxaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.